maxaa dumarka mamnuuca inaad guursato waa laba qaybood. qayb weligood mamnuuc ka ah oo aan marnaba kuu bannaanayn guurkoodu, iyo qayb wakhti mamnuuc ah. islaam baad meherisay, haddaad u galmooto wixii ay dhashayna waa kaa mamnuuc. haddaanad see u galmoonin oo aad furto inanteeda markaa waad guursan kartaa. waxa kaloo aynu isweydiin karnaa waxa weeyaan imisuu ninku guursanayaa se kuwa ka xaaraama aanu guursan karin. ila waxaynu idhi axkaamu ziwaaj baynu xoogaa ka sheegaynay. kow, afar wax ka badan ma guursan karo. fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaatha wa rubac. afar ka badan ma guursan karo. nabigu calayhi salaatu wasalaam nimankii carabtii hore dad tiro badan bay iska guursan jireen. kuwii guursaday wuxuu ku yidhi inta kale iska sii daa, afar kala hadh buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. maxaa dumarka mamnuuca inaad guursato waa laba qaybood. qayb weligood mamnuuc ka ah oo aan marnaba kuu bannaanayn guurkoodu, iyo qayb wakhti mamnuuc ah. qaybta weligoodba mamnuuc ah ee aan marnaba kuu bannaanayni saddex sababood midunbay ku yimaadaan. qayb nasab aa wadaagtaan, nasabka kuwa aad wadaagtay aan kuu bannaanayni waa wixii adiga kaa farcamay ama adigu aad ka farcantay. wixii qof dumar ee adigu aad ka farcantay, hooyo, ayeeyo, ha fogaato ama ha dhowaato, ma bannaana. wixii adiga kaa farcamay, inantaad dashay taadawowga ku seerkaasu si ahayd, ma bannaana. waxaan kaloo bannaanayn wixii aabbaha ama hooyada walaalla ah, habaryar iyo maxay iyo eedo. habaryar iyo eeddo waxaa kaloo la mida kuwa iyaga habaryar iyo eeddo u ahina waa la xukun. yacni awowgaabay la walaaliyiin. awowgaa talla walaalkii aabbahabay maxay u tahy ayay eeddo u tahy. carabtu waxay dhahdaan adigana eedday ku taho inagu ayayaynu dhahnaa, laakiin carabtu iyadana eedunbay u yaqaaneen. marka fuqahadu markay camaadka ka warramayaan bay soo gelayaan. marka aabbaha talla walaala, awowgaa talla walaala, awowgaaga kale talla walaala, kuwa aad ku taxantay oo dhan wixii walaalla ee haweeni waa kaa mamnuuc. waa darajada koowaadun iyagase. darajada koowaad maxaan uga jeedaa? tay dhaleen mamnuuc kaamaaha. eedadaad tay dhashaa waa maxay? waa inaabti iyo kuwii soomaalidu uguba jeclayd, marka mamnuuc iyadu maaha. laakiin waa levelka koowaad. aabbaha gabadhii la walaala ma guursanaysid, awowgaa tii la walaala, awowgaaga ka dambeeya kii la walaala, wixii asalkaagu uu ka yimi wixii walaalla ahi ma guursanaysid. hooyadaana xaggeeda u kaxeeyana waa la mid. idan wixii khaal la yidhaahdo, habarya khaala iyo camaad, dhankaa doonto u tiriye, iyaguna mamnuucay ku jiraan. waxaa mamnuuca ku jira wixii hable kula walaala iyo waxay dhalaan. inantaad abtiga u tay, taad abtiga u tay, tay sii dhashay, tay kale sii dhashay, kuwaasoo dhammi waa kaa mamnuuc. waxaa kaloo la mida adeerka kuwaad u ahayd, walaalka ama walaasha wixii ay dhaleen waa mamnuucay ku jiraan. intaas nasab bay kaaga xaaraan yihiin. inna musaahara guur bay xaaraan kaaga yihiin. haweentaad guursato hooyadeed waa kaa mamnuuc. haweentii aad qabtay hooyadeed waxay weliba mamnuuc ku tahay caqdi oo qura inaad gashay. yacni caqdiga waxaan uga jeedaa xataa haddaanad u galmoonin. gabadh baad meherisay, waabaad iska furtay, hooyadeed ma meherin kartid mar dambe. haddaad u galmooto iyo haddaanad u galmooninba waa isku mid. mar haddaad gabadhan meherisay hooyadeed ma guursan kartid. cagsiguse waa inaad u galmootay. islaam baad meherisay, haddaad u galmooto wixii ay dhashayna waa kaa mamnuuc. haddaanad see u galmoonin oo aad furto inanteeda markaa waad guursan kartaa. marka cagsigu waa bannaan yahay, laakiin sida kale may bannaana. waxaa kaloo kaa mamnuuca wixii aad dhashay adiga kugu abtirsaday wixii ay guursadeen. inankaad dhashay kaad awowga u tahay,
kaad awowga u siitay wixii adiga kaa farcamay wixii ay guursadeen dumar ahaa iyana waa kaa mamnuuc iyagu caqdigoo qulu mamnuuc kaaga yihi mar hadduu meherba ku xidhay waa bes adiga waa kaa mamnuuc waxaa kaloo la mid ah kuwii ku dhalay wixii ay guursadeenna aabbaha awowga kuwaasi wixii dumar ay guursadeen intaasoo dumarina waxay mamnuuc ku noqdaan maxay sabab guur waa guur baa nasab ma wadaagtaan laakiin guur ayay mamnuuc kaaga noqdeen waxaa jira kuwo kale oo uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة قرآن كوت المام أيوه وأنا قرآن سومالد ولا هين انت بدن لكن وحي الناس كولا لودين ينوى ممنوع إسلام أيا الميرو أنا يدالين أي شخصي سيناسك وأي مسجور مركز شخصيسه culamada qaar waxay qabaan haddayba naaskaba ku duudo uu ka dhargo bes khalaas waa ku filanta laakiin madhabka shaaficigu waxa weeyaan inuu shaqsiiso 5 jeer 5 goor inuu naaska intuu nuugay ka dhargay oo iska daayay isla markaana uu ku jiro maxay da'dii yarayde uu ku korayay caana cabkoo qura u ahaa labadii sare hore uu ku jiro kaasi ilmaha islaantaasi naaska nuujisay wuxuu la mid yahay ilma ay dhashay oo kale maadaama ilma ay dhashay oo kale uu la mid yahay intii uu dhalinka waxa laaliya wixii mamnuuc kaga ahaan lahayo dhan baa kaga isagana halka kan oo waa maxay walaaladii islaantani wixii kale ay dhashay ama odaygan islaantan caaneeya caanaha ka keenay wixii uu dhalay waxaasoo dhan walaalbaa loo xisaabinaya wixii habaryar u ahaa wixii eedawa yacni sidii ilma ay dhashay un wixii ku xeeraaye mamnuuc ka ahaayoo dhan reerkaa waad ku biirtay un walaalaad ka tirsantay islaanta naaska ka nuugtay reerkeeda waxaad la mid tuun ilma ay dhaleen oo kaleo sidii ilmaha ay dhalaan wixii mamnuuc ka ahaan lahaayoo dhan ayaa kaa mamnuuca idan saddexdaas shayba waa taxriim mu'abad ma guursan kartid ilaa axkaam guur baynu ka warramaynee dumarkaa nasabku keenay aan ka warrannay kuwaa guurku keenay aan ka warrannay kuwaa naasku keenay aan ka warrannay intaasi ma guursan kartid qaybna waa muxaramaad laakiin waa waqti mar bay mamnuuc tahay laakiin xaaladda haddaad ka baxdo way bannaanaan kartaa maxaa ka mid ah waan tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf laba habloodoo walaalaa mar ma wada guursan kartid socankaa maaha adoo gabadh qaba walaasheedna ma guursan kartid haddaad se iyada furto maxaa dhici kara walaasheed waad guursan kartaa markaa waxa mamnuuca un intaad tan qabto inaanad maxay tan kala guursan karin laakiin haddaad tan ama aad furtid ama ay kaa dhimato soomaalidu dhimashada u yaqaan xigsiin baa laysiiyey bay odhan jireen tu yaroo danbuu guursan jiray oo isla walaasheeda marka waanad kulmin karin laakiin midba gaarkeeda waad u guursan kartaa marka waa muxarama mu'aqat ah waqti leh waxaa la mid ah inanta aad guursatay habaryarteed iyo eedadeedna lama guursan kartid inan iyo eedadeed mar ma wada qabi kartid inan iyo habaryarteedna mar ma wada qabi kartid oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiid ku tilmaamaya laa yujmac bayna almar'a wa cammatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha gabadh iyo eedadeed lama kulmin karo ama gabadh iyo habaryarteed lama kulmin karo yaan kale la guursan karin labaynu sheegnay soo maaha labadii walaalaa inaan la kulmin karin labadii habaryar ama eedda isu ahaana inaan la kulmin karin waxaan kaloo la guursan karin oo iyadu wakti mamnuuca dee gabadh mehernin ugu xidhanna miyaa la guursan karaa maya iyana lama guursan karo ka warran hadduu furo ay ciddadii ku jirto iyana lama guursan karo marka waxaan la guursan karin iyadana gabadh ama la qabo ama ciddo ku jirta iyana lama guursado intaasi waa muطallaqaadkii waa yani waa kuwii waktiga xaaraanta ahaa waxa iyana la mid ah
gabadhaad 3 furtay ka waran gabadhii aad 3 talaaqood dhamaysay ee aad kala tagteen iyana waqti mamnuuc ka tahay soo maaha waa waqtigee inta aanay guur dambe soo marin guurka Soomaalidu ay sheegteen muxalalka la isaga waxba kama jiraan waa gabadhaasi inay sideeda u guursato ay dabeetana sideeda ninka u kala tagaan oo iyadoo magaaladeeda joogto madax banaan ay hesheen markaa wad guursan kartaa laakiin kan waan u yara guursanayaayo dabeetana waa haddana u yara furaya isagu ma jiro looma guursanayo waayo waxaynu tilmaami doonaa xagga dambe kaga warrami doonaa guurar aan bannaanaynba ayaynu ka warrami doonaa waxaa kaloo isna bannaanayn bay culammadu yidhaahdaan zaaniyaddana lama guursado ama zaaniga fiirso ninka suuqa iskaga jira waxba ha u guurinin inanta suuqa ku jirtana lama guursado laakiin hadday toobad keenaan markaa hadday toobad keenaan oo inankuna xumaha iska daayo ama inantu ay xumaha iska dayso oo ay dad wanaagsan noqdaan toobaddu dee dembiga hore ilaahay wuu ku dhaafaa gaalnimadii ka weynayd baa dee laga toobad keenaa soxayka maaha mar haddii gaalnimo intaad ka soo baxdo ilaahay toobadaada aqbalayo xumo kale inaad ka soo baxdo ilaahay subxaana wa tacaala toobadaada u aqbali doonaa laakiin inta ay ku jiraan gabadh baytu dacaara suuqa xun ku jirtaan kaalay wadaada ii guuritan baan guursanaya ma bannaana lagu guurin maayo intaasi waa intii wakhtiga mamnuuc ahaa iyo intii abid mamnuuc ahayd baynu soo marray waxaa jira nikaaxyo culammadu ay yidhahdaan waa faasid iyagu ma bannaana